qaar ka mid ah hogaamiyayaasha bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa xaqiijiyay dilka 3 nin oo Soomaali ah oo 3 maalmood ee la soo dhaafay ay kooxo hubeysan ay ku dileen xaafado ka mid ah magaalada Columbus. sida ay sheegeen booliska magaalada Columbus, laba ka mid ah wiilasha la dilay ayaa kala ah Cabdulqaadir Cali Yuusuf iyo Maxamed Cali Maxamed. wariyaha VOA Jaamac Abulle Jaamac ayaa faahfaahinta dhacdadani ka wareystay Sheekh Horseed Ayni Nuux oo ah madaxa masjidka Abubakar ee magaalada Columbus iyo Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ah qareen ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus. hadalka waxaa ku hormaraya Sheekh Horseed Ayni. بسم الله أولا دمان وسلامتين بعد VOA قاعدتي وحدة عيني وحوية إن صدح الرماد أو مركا على السوق ياهين لكن المسو صدح إيش جوده كل عادي أنا كويني صدح بالميراث صومالي إنك سوي الكودن بيولي أن راحة في سرية لفتك بحرية كذا لكن حالة سعاد لو بديرين لي وحنا يقول على كل لأنه مساجد في ويناي وحنا يحافظها لبضع حافظي وحد حين بس كويالي هي قوسي وأنا لا صاحب لي حنا وقالين habeenkii horeeyay wiil maaragtay dhalinyaro meel ku sheekaysanayay la xabadeeyay kadibna wiilka Maxamed Allah naxariistay ay xabadu haleeshay misaalka la keenay oo ku nasaxay oo maanta soo aasnay xalayna in maaragtay xaafada kale Woodwood leeyahay Soomaalidu iyadana ku badan tahay xabada ay ka dhaceen xaafadaas runtii lagu yaqaan xabadaha iyo maaragtay qaralaha aynkaas wiilo uu ku dhintay oo bari aasayna la xafiisay ka kalena kulay naf maaragtay yar oo hadda ay ku jirto sida loo sheegay sida warbaahintu hadda ay qorayso marxuumka labaad oo 26 jir ah Maxamed Cali Maxamed isagana in uu dhintay oo isbitaalka Carmel West Hospital uu ku dhintay ayaa la sheegaya. magaalada Columbus gobolka Ohio waa muddo kooban gudaheed waa markii tiro dhalinyaro ah ay hal mar ku wada dhintaan. Afrishii aan soo dhaafnay ayaa laba wiil oo walaalaha iyaguna sidoo kale lagu dilay magaalada. marka arrintan soo noqnoqotay ma mid hore u jiri jirtay mise wax idinku cusub in nambaro oo aan hal ahayn laba ahayn dhalinyaro Soomaaliyeed lagu dilo magaalada? waa su'aal muhiim ah. laba arrimood way keeneen baan isleeyahay. awalan Columbus kulli marka la eego heerka homicide number 7 heerka 7 ee dalka kaga jirta inta badanna rabshadahaas waxay ka dhacaan waa xaafadaha aan joognay South West-ga weeye. taasi waa midaas. midda labaadna arrimo kulli keenaa jira masalan sanadkiiba kubadaha lagu qabto meesha ee dhalinyarada Soomaaliyeed kubada ku ciyaaraan oo kale waxaan aragnay xilliga kubada la qabto xitaa runtii xogta aan ka helay dad khubaro ah in ay kacaan maaragtay heerka crime-ku ama dambiyadu ay kor u kacaan falalka dhibka ay kor u kacaan waxyaabaha kulli contribute gareeyay qayb ka yihiin. laakiin waa sax oo sanadkan gudaheeda haddii xisaabtan ay sax tahay ilaa 47 yaa lagu sheegaa in Ohio guud ahaan khaas ahaan Columbus ay dhimashadu gaarayso. marka wax South West Columbus weliba xaafada Woodwood la yiraahdo lagu yaqaan weeyaan maaragtay rabshadaha aynkaas ay ka soo noqnoqdaan. waaya Cabdiwaaxid waxaad la shaqaysaa xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus. xeer ilaalintuna dabcan booliiska iyo maxkamadaha gacan saar ayay la leeyihiin. marka aad fiiriso inkastoo Soomaalida magaalada degan ay badan tahay marka loo fiiriyo Soomaalida ku nool Mareykanka, haddana tira ahaan bulsho yar bay Soomaalidu ka tahay magaalada. marka dilal inta la eg inay dhacaan sidee ayaa looga arkaa xafiisyada dawladda khaasatan kuwa sharciga la halmaala? يعني waxaan marka u horeeyay horta dadkii dhintay aan leeyahay iyo iyagana Allah u naxariisto dadkii ay ka baxeen Ilaahay saari iyo ka siiyo. magaalada horta Franklin County يعني county-gaas ka mid ah Columbus ilaa 1,200,000 qof baa ku nool baleeyahay. dabcan Soomaalidu numberka ay ka tahay tirada inkastoo la isku khilaafsan yahay haddana ilaa 50 ku gaari kartaa. waa number yar marka la fiiriyo tirada ku nool. dhaqan hadda magaalo intaas 700,000 magaalada Columbus gudaheeda ay tahay lama waayayo hota crime iyo inuu dhaco iyo dil iyo rabshado. laakiin waxaa runta u baahan daraasad in la ogaado in 3 bil gudahooda in 3 qof dhimato oo rabshado qori la xiriira ay ku dhimato. runtii taasa waxay u baahan tahay in wax badan lagu ogaado. inkastoo meelaha ay ka dhaceen crime-ku hadda oo xag galbeedka magaalada ah oo runtii annagu haddaan xafiisyada joogno xeer ilaalinta eriyinkaas aan u naqaano runtii meelaha rabshadu ku badan tahay. waaya waqtiga oo isguraya dartiis waxaan jeclahay inaan labadiinaba hal su'aal idin wada weydiiyo oo ah maxaa xal ah markii laga tago dawladda iyo hay'adaha la halmaala maxaa xal ah oo jaaliyadda Soomaalida ee Columbus ay u hayaan inay uga hortagaan dhibaatooyinka noocan ah? waxaan ku hormarayaa
sheekh horseed? laba arrimoodba waan leeyahay. midda koowaad in runtii qoysku uu dib isugu noqdo, qoys walba oo Soomaaliyeed runtii anshaxu gurigu ka bilowdaa la fiiriyo, waayo waxa xiriir ka dhexeeya mar walba waxa weeyaan daawashada aflaantan maaragtay xabadaha la dhacayo iyo ciyaaridda video gameyadan violence. marka taas iyo rabshadaan runtii in xiriir ka dhexeeya wax la cadeeyay weeye in runtii qoysasku ay xaafadda dib ugu noqdaan. taasi waa midda labaadna in reerku mar walba ay u guuraan xaafadaha neighborhoodadu maaragtay ay markaa ammaanka ay leeyihiin oo xaafadaha rabshadaha ay ka guuraan, iyo in jaaliyadu si guud iyada iyo intergaradkeeda iyo aqoon-yahankeeda iyo masaajiddu gacmaha isqabsanayaan, dowladdana la shaqeynaya si guud looga hortago tilmaamahaasan kulley hadda. waad mahadsantahay cabdiwaaxid. dabcan hadda waa sida sheikhu sheegay waxa weeye bal in qoysaskuna ay ilmahooda iyo waxyaabaha ay ku xayndaaban yihiin ku xiran yihiin lala socdo, communityguna ay runtii wacyigelin badan ka samayso waxyaabaha kicinaya rabshadaha. marka waxaan isleeyahay waa hawl u baahan in communitygu iyo masaajidadu ay ka kacaan. sababaha nimankan hadda lagu dilayna dadkan dhintayna in la ogaado maxay involve ku hayeen, maxaa ku xayndaabnaa dhimashadooda markii ay jirtay, kabacdina laga tashado sidii wax u dhaceen. kuwaasi waxa ay ahaayeen sheekh horseed cayni nuux oo ah madaxa masjidka abubakar ee magaalada Columbus, iyo cabdiwaaxid cabdullaahi warsame oo ah qareen ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka. waxaana ay u waramayeen wariyaheena Jaamac Abuule Jaamac oo stuudiyaha ugu heliya.